shalay markii aynu ka soo hadalnay ninka la yiraahdo Ashraf aynu tilmaamnay waxa uu meesha ku dhaxabayay iyo waxa weeye xumaantaasi oo public la dhaximid dad badan baa waxa weeye way difaacayeen community-da ku soo qoriyay noloshiisa khaaska isagana u taala isagana laga xisaabinaya horta midda koobaad ee inagu xisaab meesha ma inaan imanin ee xumaanta wado inuu ka digno ayaa been meesha nimadnay waayo nabigeenu kaleey salaatu wasalaam soo kiina lahaa maaha qofkii awooda inuu xumaanta ku celiyo gacantiisa ku celiyo hadii uu san awoodina afkiisa kaga hadlo inagu marka afbayna awoodna maanta gacan kama qaban karna laakiin afbayna awoodna waa inuu ka hadli karnaa qodob labaad waxa uu yahay dhalinyarada difaaciisa su'aal baan weydiinaya waliba gabadho badan gabdhahana su'aal baan weydiinaya maanta su'aashu waxay tahay maanta hooyo ma tiin baa laga yaabaa laakiin si biri waxa doonaysaa inaad hooyo noqotaan ma jeceshiin awlaadiinu inay saas oo kale idinka noqoto ma la jeceshiin awlaadiina xumaan haddii jawaabtiinu may tahay marka wiilkan maxaad xumaanta ula jeclaanaysaan midda kale wiilkan wax wanaag u sameeyay mar hadduu xashiishad intuu soo qaatay waa ku cabay xashiishkaasi uu nala hor yimiday ma waxa leedahay laga aamuso yaan laga hadlin waajibkeena saaran waxa uu yahay inta xumaanta wadayna xumaanta intaanu gacanta qabanayna war waxaas waa xumeeyay horta ka joog hadduu qofku marka si public umada ula dhex yimaado oo public wixii ku muujisto isaga in public lagu hadlo weey ee maaha in gooninta loola hadlo leeyahay waxaan jooji public iyo umad dhan buu la dhex yimid marka umadii uu la dhex yimid waa in isaga lagu hadlaa waxaasoo kale wax laga aamusan maaha ee waxay tahay in laga digo marka waajibkeena saaran baa wuxuu kaliya maaha umada oo dhan waajibka saaran waxa uu yahay wal qofkii xumaan wada inaynu xumaanta inuu iska qabano waa waajibna saaran xumaantii waxay noqon doontaa wax la soo bambaxo marka maanta intay dhowdaya hadii aan laga hadlin goordhow markii faafto ee ay dadka gaadho ee aan waxba laga qaban karin calaalku wax tari maayo